deeqdan buugaagta ah ayuu xisbiga kulmiye ugu talagalay inuu ku dhiirigeliyo ardayda reer Somaliland ee ku kala dhaqan gobolada dalka ee ku hawlan waxbarashada. Mas'uuliyiin ku hadlay magaca xisbiga kulmiye ee magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ayaa tilmaamay in deeqdan ugu talagaleen inay da'yarta reer Somaliland ee waxbarashada ku jirta ku garab istaagaan. deeqdan maanta halkan timidan keenay waa deeq buugaag oo tiradoodu ay tahay 1200 buug. waxaanu iska kaashanayna hay'adda African Appeal waana buugaag ka duwan secondary school oo biology, chemistry iyo English iyo math. waxaanu ugu talagalnay dugsiyada secondary-ga. alaabtii aynu ka howlgalay horena waad u daawateen maantana waad arkaysaan waxa weeye waa qaybtii ugu dambeysay. gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel, gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga Maxamed Iid Dambiil iyo gudoomiyaha garabka haweenka kulmiye ee Maroodijeex Marwo Xusni ayaa tilmaamay qiimaha deeqdani ay ugu fadhido ardayda reer Somaliland. laamaha kale ee kulmiye ee dibadahana waxaan ka rajaynaynaa iyaguna inay tallaabadaas kala qaadaan waxbarashada soo taageeraan. qoladiina reer UK aad iyo aad baan u mahadnaynaa. reer Bristol gaar ahaan waxaan leenahay aad baan idinka gudoonnay. hawsha soo qabateen gacmo furan baan soo dhaweynaynaa waanu ka gudoonnay. waxaan u mahadnaqaynaa dadka Bristol ee dadaalkan badan soo galay si ay da'yartooda iyo dalkooda wax ugu qabtaan. maamulo ku hadlayay magaca dugsiyada xisbiga kulmiye uu gaarsiiyay buugaagtan ayaa ka mahadnaqay deeqdan waxbarasho ee la soo gaarsiiyay. anaga waa noo gudoon wixii buugaagay maanta halkan naga raaca ha yaraadaan ama ha badnaadaan mar haddii ilaa Bristol loo soo siday aad iyo aad baan ugu farxaynaa. buugga quri waxa uu wax tari karaa kumayaal kun oo qof. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Professor Cabdi Cali ayaa yiri aad baan idinka mahadnaqaynaa gaar ahaan u mahadnaqaynaa jaaliyadda Bristol xisbiga kulmiye isxilqaameen ay buugaagta garteen inay walaalahooda ay u baahan yihiin oo ay ugu deeqaan. gudoomiye ku-xigeenada labaad iyo saddexaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdidheere iyo mudane Xuseen Aadan Cadde ayaa sharaxaad ka bixiyay siyaasadda xisbiga kulmiye ee ku waajahan horumarinta bulshada. reer Bristol aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. ilaah baa mahadlay, idinkuna aad baad u mahadsantihiin. waxaadna mudantiin in la idinku daydo insha Allahna waa la idinku dayan doonaa. buugaagtana cidda ka faa'iideysanaysaa waa ardadeenna, cidda uga mas'uulka ahina waa idinka. intaasoo kaliya ku joogsan mayso lixda iskuul waxay noo ballan qaadeen inay wadaan insha Allah bidmillaahi kariim. waanu idinka rajaynaynaa wax badan dhammaan dalka Ingiriiska, Yurub oo dhan, Canada, Maraykan. dadka jooga laamaha kulmiye ee jooga aad bay uga qayb qaataan dalka waxqabadkiisa.